kadib markii ay qaniintay caaro gacan ku samaysa wiil dhalinyaro ah ayaa helay awoodihii Spiderman wuxuuna ogaaday inuusan keligii ahayn qofka leh awoodahaas yaabka leh daba inta aan muuqaalka u guda gelin waxaa si naxariis leh idinkaga codsanayaa in aad leegta isaartaan muuqaalkan sidoo kale aad subscribe isartaan Miles waa wiil dhalinyaro ah oo ku nool magaalada New York wuxuuna bilaabay dugsiga sare markuu boorsooyinkiisa diyaarsaday ayuu waalidkii macasalaameeyay maadaama uu guurayo hoyga ardayda jaamacadda oo ku taala dhinaca kale ee magaalada Miles xiriir wanaagsan lama laha aabihiisa wuxuuna si khasab ah uga aqbalay inuu gaari ku geeyo xarunta cusub inkastoo uu jeclaan lahaa inuu sii joogo dugsigiisii hore haddana wuxuu helay boos ka mid ah iskuulada ugu fiican ee magaaladaas waxaana ku qasbay aabihiisa Jeff inuu halkaas u soo wareego ardayda iskuulkan oo dhan waa kuwa aad u caqli badan sidaas darteed Miles waa inuu aad u shaqeeyaa si uu ula socdo isbuuciisii ugu horeeyay wuxuu ka daahay fasalka fiisikiska halkaas oo uu ku arkay arday cusub oo la yiraahdo Staki markuu arkay gabadha markii ugu horeysay isla markiiba wuxuu la dhacay quruxdeeda fiidkii kadib fasalka wuxuu u tagay adeerkiisa Aaron wuxuuna kala hadlay gabadha cusub ee uu xiiseynayo adeerka ayaa geeyay meel qarsoon oo uu ku sameeyo farshaxankiisa darbiyada maadaama aabihiisa boolis yahay mar walba waxaa lagu canaantaa markii uu farshaxan ku sawiro darbiyada magaalada balse markan wuxuu helay meel bannaan oo weyn oo uu ku muujiyo farshaxankiisa intuu mashquulka ku jiray caaro ayaa ka soo baxday shaybaar shirkad lagu magacaabo Simex markuu dhameeyay farshaxanka isagoo sawiraya ayaa caaradii qaniintay isla markiiba DNA-giisa ayaa isbedelay markaas ayuu si fudud isaga tuuray caaradii kadibna wuu iska baxay maalinta xigtay ayaa mushkiladuhu bilaabmeen subaxdii markuu dharkiisa xirto wuxuu ogaaday surwaalkiisu inuu ka yar yahay jidhkiisa wuxuuna u maleeyay inay sabab u tahay qaangaarnimada markuu dugsiga tagay mar kale ayuu la kulmay gabadhii wuxuuna isku dayay inuu la hadlo laakiin nasiib darro gacantiisu waxay si xoog ah ugu dhegtay timaha Staki mana uu awoodin inuu sii daayo kadib dhowr isku day oo ay isugu dayday inay iska fujiso gabdhii waxay ku qasbanaatay inay qayb ka mid ah timaha ay iska xiirto si ay isaga uga foqdo Miles oo aad u xishooday ayaa marayay dabaqa dugsiga markaas ayuu la kulmay kormeeraha dugsiga oo sheegay inuu arkay isagoo ka baxaya hoyga ardayda habeenkii hore si uusan u canaananin Miles wuu orday oo si kadis ah ayuu ku galay qolka kormeeraha taasoo sahashay in si fudud loo helo ilaaliyaha ayaa ku amray inuu albaabka furo taasoo kaga sii dartay cabsidiisa wuxuuna burburiyay qolkii isagoo isku dayaya inuu gacmihiisa ka joojiyo inay darbiyada ku dhegaan markuu ka baxay dhismaha Miles wuxuu ku socday darbiga dhinaciisa waxaana aragtay Staki markuu isku dayay inuu qolkaas ku laabto markii ugu dambeysay ee uu halkaas gaaray Miles wuxuu helay buugga majaajilada ee Spiderman wuxuuna bilaabay inuu ka shakiyo inuu helay awoodo la mid ah kuwii geesiga kadib markii caarada ay qaniintay cabsi darteed ayuu u wacay adeerkiisa Aaron balse ninku kama uusan jawaabin isaga oo isku qancinaya inuu weli yahay dhalinyaro caadi ah haddana awoodo cusub ayaa si joogto ah ugu soo baxaya Miles wuxuu raacay tareenka dhulka hoostiisa mara wuxuuna aaday meeshii uu xalay farshaxankiisa ku sameeyay si uu u eego caaradii qaniintay markii uu arkay wuu fahmay in aysan ahayn caaro caadi ah si lama filaan ah wuxuu isku arkay goob dagaal oo u dhexeeya noole shari wade ah iyo Spiderman kaasoo isku dayaya inuu joojiyo dambiilaha doonaya inuu furo albaab dunida kale u furmaya Miles si kadis ah ayuu dagaalka dhexdiisa ugu dhacay wuxuuna ku qasbanaaday inuu cararo si uusan ugu dhicin weerarka xayawaanka weyn Miles wuxuu ku sigtay inuu ka dhaco meel aad u dheer balse Spiderman ayaa maqlay qayladiisa oo soo badbaadiyay geesiga ayaa si dhaqso ah u ogaaday in wiilkani sidoo kale leeyahay awoodo wuxuuna isku dayay inuu dejiyo isla markiiba wuxuu u dhaqaaqay inuu burburiyo mashiinka si uusan albaabka u furmin laakiin intaan Peter hawshiisa dhamaynin dambiile kale ayaa soo baxay oo qorshihiisa carqaladeeyay Bowler ayaa si xoog leh u soo weeraray taasoo keentay in Green uu qabsado Spiderman markaas ayaa Kingi amar ku bixiyay in la furo albaabka taasoo sababtay isku dhafka dunyo badan isagoo isku dayaya inuu ka baxsado gacanta Goblin Spiderman ayaa ku dhacay gudaha albaabka taasoo keentay mashiinkii inuu qarxo daqiiqado kadib Miles wuxuu ka helay geesigiisii uu jeclaa dhismihii burburay wuxuuna gacanta ugu dhiibay furaha qarsoodiga ah Peter wuxuu ku dhahay adiga oo kaliya ayaa joojin kara mashiinkan howlgalka Miles waa inuu isticmaalo furaha si uu mashiinka u qarxiyo laakiin isagoo u socdo Kingi iyo raggiisa ayaa soo muuqday wuxuuna arkay iyagoo dilaya Spiderman markaas ayuu Bowler arkay Miles wuxuuna bilaabay inuu ka daba tago si uu uga takhaluso markhaatiga kaliya ee arkay dhimashada geesiga magaalada Miles isagoo cabsi ka qaba noloshiisa wuu orday oo ugu dambeyn tareenka hoostiisa ayuu galay wuxuuna ku sigtay inuu tareen ku dhaco balse ugu dambeyn wuxuu baxsaday cadowgii daba socday kadib markii uu la kulmay murugtii ugu weyneyd noloshiisa wuxuu guriga ugu tagay aabihiisa wuxuu ogaa inuusan waalidkiis u sheegi karin wixii dhacay sidaas darteed wuxuu kaliya weydiistay in loo ogolaado inuu habeenkaas guriga seexdo halkii uu ka aadi lahaa hoyga ardayda laakiin goor dambe ayuu maqalay wararka oo xaqiijinaya dhimashada Peter oo 26 jir oo ahaa Spiderman 10kii sano ee la soo dhaafay subaxdii xigtay Miles wuxuu aaday dukaan si uu u gato dharka geesiyaasha kadibna wuxuu kula biiray taageerayaasha kale ee Spiderman si ay u dhageystaan khudbadda Jane oo ahayd xushmad ay u muujinaysay ninkeeda dhintay maalintaas wixii ka dambeeyay Miles wuxuu go'aansaday inuu noqdo Spidermanka cusub wuxuuna fuulay saqafka dhisme si uu tababarkiisa u bilaabo laakiin markii uu booday wuxuu ku soo dhacay dhulka wuxuuna ogaaday in furihii qarxin lahaa mashiinka uu jabay habeenkaas jiilaalka ah oo baraf ku daboolay
daboolay magaalada New York wuxuu aaday qabriga Peter si uu uga raali geliyo inuu jabiyay furaha. Markaas ayaa nin qarsoodi ah u soo dhawaaday, markuu taabtayna Miles si lama filaan ah ayuu dhina iskaga tuuray. Intii ninku uu miyir beelay, Miles wuxuu gacantiisa ku qabtay qalab shabakad soo deynaya, wuxuuna ogaaday in ninkan uu isna yahay Peter kale. Sidoo kale waxaa qanintay caaro sumaysan, wuxuuna lahaa nolol la mid ah tii Spiderman-ka ee dunidaas. Barqiga ayaa ahaa in dunidiisa ayeeyo May hore u dhimatay. Taasi waxay ka dhigtay mid niyad jabsan, wuxuuna ka daalay nolosha geesinimada. Mar uu gurigiisa pizza uu ku cunayay, dalool madow ayaa hortiisa ka soo furmay, waxaana lagu jiiday magaalo kale ee New York ah. Markii boolis yimaadeen qabriga, Miles waa inuu ka baxsadaa si aan loo qaban, laakiin wuxuu ku xiran yahay Peterka cusub oo shabakadiisa ku dhigan, sidaas darteed waa inuu la jiido. Markii boolisku hareereeyeen, Miles si kama ah ayuu ku sababay in Peter uu awooda uu ku tuuro tareen socday. Labadoodaba waxaa jiiday tareenkii ilaa uu istaagay, kadibna waxay ku dhaceen buundo saxmad ah hoosteeda. Markii uu soo toosay, Peter wuxuu ku xirnaa bac feer lagu tababarto. Miles ayaana su'aalo weydiiyey ilaa uu si uu iskaga sii daayo uu helay. Markuu xuroobay, jidhkiisa ayaa bilowday inuu burburo, wuxuuna sheegay in atamka jidhkiisa isku dhex yaacsan yihiin sababtoo ah wuxuu ku sugan yahay dunidii khaldaneed. Sidaas darteed wuxuu go'aansaday inuu aado taawarka si uu u adeegsado inuu ku laabto gurigiisa. Laakiin maadaama furihii la jabiyey, Peter waa inuu jabiyo shirkadda Simiki si uu u sameeyo mid kale. Subaxdii xigtay, kadib markii ay cunto cuneen, labadooduba waxay raaceen bas una socda xarunta shirkadda. Markii ay gudaha u galeen, Miles wuxuu ogaaday awood cusub, waana inuu iska digi karo mid aan la arki karin. Markii ay maqleen dad soo socdo, Spiderman wuxuu Miles siiyey flash iyo password si uu u soo dejiyo barnaamijka qarxin doona mashiinka. Laakiin markaas ayaa Olivia soo gashay, waxayna la yaabtay inay ku aragto Spiderman xafiiskeeda. Peter ayaa isku dayay inuu mashquuliyo si uu Miles u helo waqti, balse wiilka ma xasuusan passwordkii, wuxuuna go'aansaday inuu qaato kombuyuutarka oo dhan. Markii uu ku sii jeeday albaabka, Olivia waxay isku muujisay inay tahay dambiilaha caanka ah ee Dr. Octopus. Inta Peter dagaalamayo si uu uga hortago, Miles wuxuu ka faa'iidaystay fursad uu ku baxsado, wuxuuna jidka kula kulmay Starky. Hase yeeshee, maadaama uu xirnaa maaskaro, wuxuu aaminsanaa inaan la aqoonsanayn. Kadib markii ay ka baxsadeen Olivia, labadoodii waxay galeen kafeteriyada shirkadda, halkaas oo shaqaalihii oo dhan hub soo qaateen si ay u qabtaan. Nasiib wanaag waxay iska ilaaliyeen rasaasta, waxayna u baxsadeen keynta iyagoo isticmaalaya shabakadooda awooda badan si ay geedaha u qabsadaan. Laakiin Miles weli si fiican uma baran sida Spiderman uu duulo, markaas ayuu barafka ku dhacay oo shaqaalihii ayaa soo daba orday. Isla markiiba Dr. Octopus ayaa soo muuqatay oo soo weerartay Miles, laakiin wuu ka baxsaday oo wuxuu orod ula cararay Peter. Intii ay baxsanayeen, jirka Spiderman-ka kale ayaa mar kale bilaabay inuu burburo, wuxuuna ku dhacay geed. Dr. Octopus ayaa fursad u heshay inay kombuyuutarkii dib u hesho, laakiin lama filaanka waxay ahayd in geesi kale uu soo muuqday oo guul ka gaartay dagaalka, kuna celisay qalabkii. Kadibna Starky ayaa maaskaraataha iska bixisay, waxayna muujisay aqoonsigeeda. Waxay u sheegtay in iyaduna ay ka timid dunida kale. Caaro sumaysan ayaa qaniintay 2 sano ka hor, si kastaba markaas awoodeeda ma aysan u isticmaalin inay ku badbaadiso saaxiibkeedii ugu fiicnaa Peter. Maalin ay dad badbaadinaysay ayaa iyadana lagu dhuftay albaab oo ay ku suuxday, taasoo geysay New Yorkta kale. Markaas kadib saddexdoodii waxay si wada jir ah ugu baxsadeen meel ammaan ah oo ka fog keynta. Dhanka kale, Kingi wuu carooday markuu ogaaday in kombuyuutarkii lala baxay, wuxuuna soo xusuustay maalintii uu qoyskiisa waayay. Wuxuu ku jiray dagaal uu la galay Spiderman, markaas ayaa xaaskiisa iyo wiilkiisu guriga yimaadeen. Markay aragtay rabshada halkaas ka socota, xaaskiisii waxay cabsi ka qaaday ninkeeda, waxayna wiilka ula baxsatay iyadoo gaari qaadatay. Laakiin maalintaas shil bay galeen, wayna ku dhinteen. Hadda Kingi wuxuu doonayaa inuu furo albaab dunida kale si uu qoys kale uga helo. Markay baska saaran yihiin oo ay ka fog yihiin xarunta Simikis, Miles wuxuu tusay Starky furihii jabay. Gabadhu waxay tiri waxaan ogahay meel lagu sameeyo. Habeenkaas saddexdii geesi waxay booqdeen guriga ayeeyo May. Haweeneydu waxay la yaabtay inay aragto Peter, inkastoo ay garatay inuusan ahayn wiilkeedii, balse uu ka yimid dunida kale. Haddana way ku faraxday inay la kulanto. Miles ayaa markaas weydiiyey in Peter uu lahaa meel uu ku sameeyo furayaasha. Ayeeyo May waxay ku geysay qol yar, balse waxay noqotay in albaabkaas uu yahay mid geesiga qarsoon hoostiisa u qaadaya. Markii ay gudaha galeen, dhammaan waxay la yaabeen inay arkeen hoygii dhabta ahaa ee Spiderman. Intay dharka geesiga fiirinayeen, Miles wuxuu arkay in Peter murugo uu galay markuu arkay sawirka Mary, wuxuuna isku dayay inuu dhiirigeliyo. Markay kor u eegaan, waxay heleen shabakad madow oo isku dhex qasan, waxayna ogaadeen in 3 Spiderman kale dunidan loo soo diray. Kooxdaas waxaa ka mid ahaa dambi baare khaas ahaa oo noolaa sanadka 1933, gabar timid qarniyo ka hor oo xiriir maskaxeed la leh caaro, iyo ugu dambayn doofaar. Waxa ay wadaagaan waa hal shay, dhammaantood waxaa qaniintay caaro sumaysan. Waxayna go'aansadeen inay isku biiraan si ay waddo ugu helaan inay dib ugu laabtaan guryahooda. Nasiib wanaag, kooxda waxay ku tiirsanaan karaan Miles, kaasoo hogaamin doona saaxiibadiisa cusub si ay ugu laabtaan guryahooda ka hor inta mashiinku uusan qarxin. Mushkiladda ayaa ah in Miles aanu weli si fiican u xakamayn karin awoodihiisa, sidaas darteed ma awoodo inuu ka adkaado Kingi marka uu isku dayo inuu ka hor istaago inuu burburiyo kombuyuutarka. Markuu ogaaday in saaxiibadiis aysan kalsooni ku qabin, Miles wuxuu isticmaalay awoodiisa qarsoodiga ah si aamusnaan ah ayuuna uga tegay. Isaga oo aan meel kale u socon, Miles wuxuu tegay guriga adeerkiis Aaron. Markuu ogaaday in gurigu aysan cidna joogin, wiilku wuxuu u qoray warqad isagoo ku muujiyey inuusan doonayn inuu dadka mar walba niyad jabiyo. Si lama filaan ah, Bowler ayaa yimid, wuxuuna furay daaqadda si uu gudaha uga soo galo. Miles wuu baqay, wuxuuna isku qariyey isagoo adeegsanaya awoodiisa qarsoodiga ah si aan loo arkin.
laakiin markuu booler iska bixiyey maaskarta wiilka wuxuu ogaaday inuu yahay adeerkiis Aaron. Taasi waxay ku riday naxdin weyn. Markii uu isku dayay inuu ka baxo daaqada, Aaron ayaa dareemay oo bilaabay inuu soo daba ordo. Isagoo wata mooto, Aaron wuxuu ku dhacay Miles wuxuuna sababay shil gaadiid oo aad u culus. Nasiib wanaag, Miles dhaawac kama gaarin wuxuuna sii watay baxsigiisa. Dhanka kale, Benny iyo robotkeeda caara-caarada ah ayaa ku mashquulsanaa samaynta fure cusub. Markii ay dhamaystirtay, gabadhu waxay ku wareejisay furaha Peter. Xilligaasna Miles ayaa soo muuqday. Wiilku wuxuu u sheegay in adeerkiis uu yahay booler, laakiin isla markiiba wuxuu ogaaday in la soo daba socdo sababtoo ah Dr. Octopus ayaa soo gashay iyadoo wadata ciidan si ay uga takhalusto Spidermanada. Haweeneyda ayaa isku dayday inay xoog ku qaadato furaha, laakiin geesiyaashu ma ogolaanin arrinkaas. Dagaal weyn ayaana bilowday. Daqiiqado kadib, booler ayaa soo muuqday. Peterna wuxuu isku dayay inuu la dagaalamo, balse Olivia ayaa qabatay, halka Miles uu furihii gacanta ku dhigay. Isagoo adeerkiisa daba ordaya, Miles wuxuu fuulay saqafka dhismaha, laakiin ugu dambeyn waa la qabtay wuxuuna ku sigtay in la dilo. Markaas ayuu go'aansaday inuu iska bixiyo maaskarta oo uu muujiyo inuu yahay wiilka uu adeerkiisa dhalay. Markii Aaron uu arkay, wuu naxay isla markiiba wuu sii daayay. Laakiin Kingi oo meel fog ka daawanayay ayaa rasaas ku dhuftay Aaron sababtoo ah wuxuu diiday inuu fuliyo amarkiisa. Isla markiiba Miles wuxuu u qaaday adeerkiis oo meel kale ayuu geeyay. Wiilku wuxuu ka cudur daaratay wixii dhacay, laakiin Aaron intaanu dhiman ayuu ku yidhi, "Wadada saxda ah ayaad haysaa, aad baan kugu faanayaa." Markaas ayaa Miles aabihiisa yimid isagoo baabuur wata, wuxuuna isku dayay inuu wiilka qabto. Miles wuxuu adeegsanayay awoodiisa qarsoon si uu uga baxsado. Jeff markuu arkay walaalkiisa oo dhintay, qalbi xanuun weyn ayuu dareemay, wuxuuna rumaystay in Spidermanka cusub uu dilay. Naxdin iyo caro darteed, Miles wuxuu dib ugu noqday hoygiisa, halkaasna saaxiibadiisa uga daba yimaadeen. Dhammaantood waxay horay u soo mareen inay lumiyaan qofka ay jeclaayeen, sidaas darteed waxay isku dayeen inay dejiyaan Miles. Intii ay wada joogeen, wiilka ay isku fasalka ahaayeen Miles ayaa yimid. Geesiyaashuna waxay isku qariyeen saqafka. Ugu dambeyntii wuu arkay, wiilkiina wuxuu ka argagaxay martidii qarsoodiga ahayd wuuna miyir beelay. Markaas ayuu Miles soo saaray sariirtiisa isagoo rajaynaya in marka uu soo tooso uu u malayn doono in wax walba ay riyo ahaayeen. Peter oo ka walwalsan Miles wuxuu go'aansaday inuu dunidan sii joogo si uu u damiyo kombuyuutarka xitaa haddii ay noloshiisa halis galayso. Ma rabin inuu khatar geliyo mustaqbalkiisa haddii Miles uusan weli awoodin inuu mashiinka burburiyo. Peter wuxuu adeegsaday shabaqiisa si uu kursi ugu xiro Miles wuxuuna raacay kooxdiisii kale. Intii wiilku isku dayayay inuu iska fujiyo, aabihiisa Jeff ayaa yimid. Inkasta oo Miles uusan albaabka furin, Jeff wuu garanayay inuu wiilkiisu dhinaca kale uu joogo, wuxuuna ka codsaday cafis sababtoo ah mar walba wuu u adkaa. Markuu ku yidhi, "Waan ku jeclahay," ayuu isaga tegay. Miles markaas ayuu go'aansaday inuu si dhab ah u barto sida loo xakameeyo awoodihiisa. Isla markiiba wuxuu iska fujiyey wuxuuna aaday bakhaarkii eeyayadiisa, halkaas oo uu ka doontay dharkiisa cusub ee geesinimada leh. Kadibna wuxuu fuulay dhismihii ugu dheeraa magaalada si uu ugu tababarto isticmaalka awoodihiisa. Dhanka kale, saaxiibadiis waxay aadeen xaflad uu qabanayay Kingi, waxayna isku ekaysiiyeen shaqaale si ay u gaaraan shaybaarka halka kombuyuutarka uu yaallo. Laakiin markii ay heleen, mashiinku hore ayaa laga shiday, magaalada oo dhan ayaana khatar gashay. Peter si degdeg ah ayuu ugu orday inuu damiyo, laakiin Olivia ayaa mar kale hortiisa soo istaagtay. Markii geesiga la sigay in la dilo, Miles ayaa soo muuqday oo badbaadiyey. Saaxiibadiisna waxay ku farxeen inuu hadda si fiican u bartay xakamaynta awoodihiisa. Markuu arkay in qorshihiisu uu khatar galay, Kingi wuxuu amar ku bixiyey in la kordhiyo awoodda mashiinka, wuxuuna sababay in duniyo badan ay isku dhacaan. Inta kale ee kooxda waxay sii wadeen dagaalka, waxaana soo weeraray dibqalo. Wuxuu adeegsaday burus weyn si uu ugu dhufto xayawaanka, kadibna basaaskii ayaa caawiyey inuu dhammaystiro weerarkii ugu dambeeyey. Hadda Olivia keliya ayaa ka harsan oo weli la dagaalaysa si ay u disho Peter, Miles iyo Starkey. Laakiin inta ay diyaar u noqdeen inay ka adkaadaan, gaari weyn ayaa ku dhacay, waxaana u suurta gashay inaysan dagaalka sii wadin. Markaas ayuu Miles arkay fursad uu ku soo dhameeyo hawshii uu u dhiibay Spidermanka geeriyooday, wuxuuna aaday inuu damiyo mashiinka. Waqtigii geesiyaashu ay u noqon lahaayeen dunidooda ayaa soo dhow. Benny waxay ka murugootay khasaaraha robotkeeda, kaasoo lagu burburiyey inta dagaalka uu socday. Haddaba waxay qaadatay saaxiibteedii cayayaanka ahayd, waxaana ay labadooduba ka gudbeen albaabka markii Miles uu furay. Kadibna mashiinkii sirta ahaa ayaa ku laabtay sanadka 1933. Intaysan bixin, wuxuu Miles ugu deeqay buriskiisa. Starkeyna waxay macasalaamaysay saaxiibkeeda ka hor inta aysan laaban. Markii la gaaray waqtigii Peter inuu bixi lahaa, Kingi ayaa soo muuqday. Spidermanna wuxuu isku dayay inuu sugo inta Miles uu ka burburinayo mashiinka. Si kastaba ha ahaatee, Miles ma rabin in saaxiibkiisa isdilo, wuxuuna ku adkaystay inuu isagu hawsha soo dhameeyo. Sidaas darteed wuxuu ku tuuray Peter gudaha mashiinka wuuna macasalaameeyey, isagoo ku faraxsan horumarka wiilka yar. Haddaba Miles ayaa keli ku noqday inuu la dagaalamo Kingi. Intii ay dagaalamayeen, labadooduba waxay ku dambeeyeen gudaha tareen. Kingi wuxuu si xoog leh u garaacay Miles wuxuuna ku sigtay inuu dilo, kadibna wuxuu arkay xaaskiisa Vanessa iyo wiilkiisa. Gabadhii markay aragtay ninkeedii oo noqday bahal, mar kale ayay ka carartay, taasoo ka sii xanaajisay Kingi. Intii dagaalku uu socday, Jeff ayaa yimid oo dagaalka daawanayay. Markuu arkay Spiderman oo xaalad adag ku jira, wuxuu bilaabay inuu dhiirigeliyo. Markuu arkay aabihiisa, Miles wuxuu dareemay dhiirigelin badan oo uu ku guulaysto. Wuxuu isticmaalay tamartiisa qaraxa ah, wuxuuna Kingi ku tuuray mashiinka si uu ugu sababo qarax. Markii mashiinka la burburiyey, wax walba waxaa lagu celiyey gudaha ka hor intuusan qaraxa weyn dhicin. Ugu dambeyntiina, Miles wuxuu ku guulaystay inuu dhameeyo hawshiisa. Wuxuuna wacay aabihiisa si uu ugu sheego inuu ka xun yahay geerida adeerkiisa Aaron. Kadib dhacdooyinkaas, Jeff wuu gartay in Spiderman uusan ahayn
ahayn kan dilay Aaron wuxuuna go'aansaday inuu ogaado ciddii dhab ahaan ka dambaysay markuu iska dhigay telefoonka Miles wuxuu xirtay maskaraatihiisa wuxuuna aabihiisa ula geeyay Spiderman maalintaas wixii ka dambeeyay Miles wuxuu noqday Spidermanka cusub wuxuuna qaaday mas'uuliyadda daryeelka magaalada New York isagoo sharaf u haya magacii iyo dhaxalkii Peter Parker